السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta. Haddaba barnaamijka labaad maanta aan idin soo gudbinayno waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn kadib markii xalay ilaa saakay Mareykanka iyo Iiraan ay siday tahay isu duqeeyeen. maxaa soo baxay kadib wixii warara Iiraan dhankeeda iyo dhanka Mareykanka ayaan idin hayaa. wadooyinka ayaa lagu arkay burburka diyaaradda halista badan ee Mareykanka ee yiraahdo F-35 iyadoo la sheegay in diyaarado Mareykanku leeyahay xalay la qararamsaday. haddaba wararkii ugu dambeeyay wixii dhacay iyo hadda xaalku halkuu joogo madaxweynaha Iiraan iyo Trump oo isu jawaabay wararkaas ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena labaad. intaan ku jirnana wixii akhbaarada ay soo kordhawaan idinla socodsiin doonaa. wada barnaamijkeena labaad maanta waa Arbaco taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 10 bisha 6 2026. barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay intaynu kala maqnayn iyadoo aanu ognahay xalay ilaa saakay in duqeymo culus la isdhaafsaday Mareykanka iyo Iiraan ayaa hadda waxaa soo baxaya qolo walba inay ka hadasho wixii ay ka dhigtay xalay goobihii lagu dagaalamay. haddaba marka hore waxaanu ku bilaabaynaa Iiraan kadibna Trump iyo kooxdiisa ayaynu ka hadli doonaa. haddaba marka ugu horeysa waxaynu ku hormaraynaa madaxweynaha dalka Iiraan ninka la yiraahdo Mas'uud Pezeshkian ayaa wuxuu yiri xalay waxaan awoodeena u muujinay cadawga si aad u xoogan waliba. haddaba warbixintu way sii socotay wuxuu leeyahay xalay wixii aan ku dhignay way ogyihiin iyaga way ogyihiin awoodeena tii ay ogaayeen mid ka culus inay noqotayna waa ogyihiin. marnaba ma aqbali doono inay waxay doonaan naga sameeyaan inay iska kaana soo weeraraan oo aan ka aamusno wax dhici kara ma. Mareykanka isagaa bilaabay weerarka iyagoo ku andacoonaya diyaaraday leeyihiin in laga soo riday laakiin markii dambana iyagaa joojiyay markii dhagaha la iska garaacay. marka wuxuu taagan yahay odaygii dhintaana la dardaarmay aayatullaahi nimankan nabad iyo maaragtay iyo dagaal toosan midna uguma tegaysaana feejignaaduu yidhi. marka nimanka waa sidii dagaal toosana ma galayaan haddana maantoo dhan waa ku soo weerarayaan. heshiis toosana ma qaadanayaan maantoo dhan qodobo cusubay keenayaan. marka waa niman iska daba wareeg badan uu yidhi. marka aayatullaahigii ayaa nooga dardaarmay uu yidhi. marka taas marka waxay muujinaysaa Iiraan inay sheeganayso dagaalkii dhacay xalay ilaa saakay inay guulo waaweyn ka gaartay cadawgeedana ay tustay awoodii hore lagu ogaa mid ka daran inay meesha taallo. waaya taas marka waa qodobka dhanka Iiraan. wali waxaynu ku jirnaa wararkii Iiraan ee soo kordhay. sheeko la yaab laha taagan marka Iiraan waxay gashaa la leeyahay taariikhda kadib markii ay qararamsatay diyaaradihii Mareykanka ee F-35. laba qayb waay marka sida warbaahintu uga hadlayso. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan markii weerarku socday saaki waxay sheegeen saldhig Urdun ku yaala oo diyaaraduhu ay ku jireen inay duqeeyeen. taas waaba loo tagay iyagoo meeshooda joogaa la duqeeyay iskaba dhaaf. midda gacanta loogu taagay xalay diyaarad F-35 la soo ridaaliyay oo Iiraan weerar ku qaaday. macnaha diyaaradihii Iiraan weerarayay ayaa la qararamsaday. tani waxay ka dhigantaa la leeyahay inay awoodii ugu horeysay ee Mareykanka tusta diyaaradan F-35 in la soo ridi karo. weligiis lagama soo ridinaalin Iiraan looga soo ridayaa. kuwa iskood u dhaca oo shil iyo wax in ku dhaca way dhici kartaa laakiin diyaarad dagaal u qalab qaadatay oo F-35 oo dagaal aaday oo la soo rido Iiraan soo ridaalay. Iiraan marka taariikhda gashalay. haddaba marka waxaa jira sawirro iyo video yaacaya meel kasta oo marka burburkii diyaaradda oo ay soo qaadatay Iiraan. niman Chinese iyo niman Ruush beel u fadhiya diyaaradii keenale diyaaradii iyadoo baabuur lagu wado maartay tareelayaal dhaadheer la soo dul saaray ayaa wadooyinka laga soo sawiray.
haddaba xogahan waxaa ka waramaysa telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay video ayaa wuxuu socdaa baraha bulshada kaasoo la sheegay in ay dadku daawanayaan boqolaal kun oo qof ayaa isku diraya videogaas kadib markii la shaaciyay burburka diyaarad Mareykanku leeyahay oo nooceedu ahaa F-35 taasoo Iran ay sheegtay inay xalayto soo riday haddaba haddii ay tani sax noqoto ay leedahay Jazeera wuxuu muujinayaa videogan in markaa Iran ay gashay taariikhda kadib markii diyaaradan casriga ee Mareykanka oo lagu tiriyo kuwa ugu casrisan adduunka ay markaa soo rideen Iiraaniyiinta ayna noqonayaan dawladii ugu horeysay ee dagaal ku soo rida marka Al-Jazeera marka ma cadeyn karnaa leeyahay videogan sax ahaanshihiisa laakiin mana beenin karno macnaha videoga run uu egyahay laakiin wax aan hadda gooniyo oo ku cadeyn karna male laakiin tani haday dhacdo waxa leeyahay waxay noqonaysaa dawladii ugu horeysay ee taariikhda gasha ee Mareykanka diyaaradii uu adduunka ugu booteynayay mid kamid ah ay dhulka soo dhigtay marka ma arkaysaa marka xalay waxyaabahaasaan dhacay marka waxa la isku xirayaa madaxweynahoodii muxuu yiri way arkeen awoodii ay nagu ogaayeen mid ka xoog badan inaan hayno iyo diyaaradan la soo riday waxa kan marka niman sahlan ma ah ninkii taraamaha marka isagu waa soo hadlay hadalkiisa waxba laga dhadhansanaa la leeyahay odagu inay baasho ku xuntahay oo gabgabtii hore iyo bootadii hore ba jirto laakiin wali waa booteeraya odaga wali ma sahlana haddaba markaan idin tuso dhanka Mareykanka markaan u wareegno wararkii ay ka qoreen wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxay leedahay dadkan maaragtay qadariyiin wada hadallo qaabilsan ayaa waxay u safreen ee leedahay Tahraan si ay isugu dayaan in bal arinta la dejiyo oo heshiiska ma dambaysa la gaaro marka arintan waxa leeyahay Trump warkiisa waa noo soo socdaa laakiin tana ka soo hormartay qadar ayaa saaka wafdi u dirtay waxay aadeen maaragtay Iran laakiin waxa la isweydiinayaa Urdun Kuwait iyo Bahrain nagta ka saartay Iran qadar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo awal ay weerari jirtay ma weerarin sababtu maxay tahay Iran marka waxay leedahay sababtu waa la garanayaa macruuf ay nala kama soo weerarin halkan laakiin maalmaha Mareykanka halkan dhinacyadan uu naga soo weeraraya marka meel walbo nalka soo weerarana sidaasaan u ciqaabayna oo dhagaa ka garaacayna ay leeyihiin haddaba marka dhanka Mareykanka ayaanu u gudbaynaa Trump warkiisii ayaan galaynaa Trump wuxuu yiri waxaa soo dhawaaday xilligii aan bixin lahaa awaamirta lagu weerarayo oo cusub Iran madaxweynaha Iran heshiis ma gaarayso waa kaas marka waxa la soo gaaray waqtigii aan bixin lahaa awaamirtii weerar culus lagu qaadi lahaa Iran waxarta soo qaaday tagin aday ku talaadeer marka hadda jawi ahaan xaaladdu way degatay weerar soo qaada weerar lagu qaaday waa degtay marka xaalku laakiin goor dhaweyd waxa war soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al-Jazeera waxay leedahay waxa war soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxayna tiri ciidanka Iran waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyada Mareykanka ee gobolka kuwaasoo ay sheegtay inay ahaayeen kuwii xadgudubyada Iran ay kaga yimaadeen oo laga soo weeraray waxay ka codsatay dhammaan dawladaha gobolka ku yaala in ay u diidaan Mareykanka inuu dhulkooda isticmaalo si uu Iran uga soo weeraro haddii ay dhacdose Iran ha ogaadeen dawladahaasu inay jawaabtoodu gaari doonto marka wasaaradda arrimaha dibadda Iran warkeedu waa cadiyay dawladaha dariska anagu ma weerarayna yiraahdeen laakiin ay iska celiyaan Mareykanka hadduu dhulkoodu naga soo weeraro annaguna cagta marinayna
kuwait iyo baxrayn iyo urdun marka saasaa lagu haystaa qatar iyo maraykan iyo sacuudi iyo maaragtay qatar iyo imaaraad iyo sacuudi iyagu maaragtay maalmahan wax dhibaato oo xaggooda nooga yimaada ma la yidhaahdeen marka sheekadu marka halkaasay maraysa wararkaas ayaa ugu waaweynaa haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaanu u gudbi doonaa wixii macluumaada ee cusub intaynu barnaamijka ku jirnay soo kordhay majeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah qur-aanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa maalinimo arbacaha qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkaanu marayna alaab waxaynu kusoo qaadanaa inta aynu ku jirnay barnaamijka wixii warara ee soo dhacay haddaba war goordhow soo dhacay waxaa la sheegayaa in diyaarad daroona oo Israa'iil ay leedahay ay bartilmaameedsatay gaari marayay deegaanka la yiraahdo Sayda oo ku yaala koonfurta Lubnaan marka gaarigaas ilaa hadda tafaasiil lagama hayo sababta diyaaraddu ay u weerartay oo ay u burburisay dhanka kale madaxweynaha Lubnaan ayaa isaguna laga soo xigtay inuu yiri cid magaceena wada hadal ku gali kartaa ma jirto isagoo ku dhaga hadlaya Iiraan waa madaxweynaha Lubnaan wuxuu leeyahay cid magaceena wada hadal ku gali kartaa ma jirto macnaha Iiraan wada hadallada ay gasho soo Lubnaan kuma soo darto in iyadana xabadda laga joojiyo marka magaceena kuma gali karaan yaa wax weydiina Iiraan iyo Xisbullah hawshooda waa wataan marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa oo intaynu ku jirnay barnaamijka gadaal ka yimid haddaba wixii kale oo akhbaarada iyo warar ay soo kordha waan isugu soo dubaridi doonaa waxaynu ku soo gudbin doonaa barnaamijkayga soo socda haddii alla idmo like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo